بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي بقى محضله ومرصد حاج سورك يسوع عليه إن ندوبنو 10 كيني صدحات كورسكا fb.net waxaynu maanta duubi doonaa 10 kiini saddexaad oo ka koobnaan doona 6 xabo ee kamid ahaa common controlska waxaan ugu horeyn doonaa list box waxaan soo kacsan doonaa Courskan Visual Studio 2010 professional inagoo duubi doona 10 kiini saddexaad new project waxaanu bixin doonaa listen 3 fb.net 2010 okay okay ayuu leenahay locationku inoo geenayana waa documentigi listen 3 already uu ku jira ayuu yiri listen 3 okay basic inoo si raaci okay u qaatay wakan waxa inoo soo baxay formkeenii u horeeyay koow horta bal formkan ay magac ka bedelno sayna ku soo aragnay 10 kiini koobaad adigoo tagaya halka ay qaybta property-ga dan waxaad ka sii dooran doontaa text meesha ay ku qoran tahay waxaynu ogsoonahay inaan hore kuugu sheegay inaan bedeli karin meesha ay ku qoran tahay name-ka oo ah magaca originalka ah uu leeyahay formkaagu iyo halkan ay ku qoran tahay text oo ah magaca yar u sareeya formkaaga oo ah halka heading-ka ah aad ka bedeli kartid aynu bixino listen 3 practical okay formka inoo yar weynee waxaynu ku horeyn doonaa bal list box-ka soo shaqeeyo inagoo ka eegi doona 10 kiina koobaad ee halkan list box okay list box-ki waynu eegnay waxaan tagnaa common controlskeeni list box inoo soo qabo waa kan halkan istaagsi oo list box horta list box original ahaan wuxuu yahay inuu eegno aynu u ran gareynana waa kan list box-ki waynu ran gareynay list box originally waa formka yada cad ee banaan ee waxba ku qornayn list box-ka waxa loogu tala galay inaad u samaysato button wax kuugu upload gareynaya isna inuu isu ka hoos dhigo okay list box-ki waa kan waxaan ku soo dareynaa bal hal button okay waa kan halkii button kan waa check button inaga delete hal button okay waa kan halkan button waxaanu bixinaynaa isagana text-iga ka bedel sayna hore u soo aragnay waxaad tiraahdaa send in wax ku diro text box list box okay list box-ku waxay wax u sii marayaan hal xabo text box inoo sii qaad meeshii ay sii mar lahayd shaqada wax laga xareynaya okay waa kan formkeenii sidan aynu design gareysanay koow waxaan doonaynaa markaynu halkan gelino magac ama daato la dhaho ka soo qaad sabti oo kale inaynu gelinay maalin send markaynu raahno inuu ku daro list box-ka ayaan doonaynaa okay waxaynu isticmaalaynaa code la dhaho waxaad double click siinaysaa buttonka send ay ku qoran tahay okay buttonka ay send ku qoran tahay markaad double click siisid waxaad ku qori doontaa code-ka la dhaho list box 1 okay halkan waxaad ka raadinaysaa list box 1 waa kan dot item waliba itemisa dot items haye okay waxaad ku add gareysaa dot add la dhaho qows fur meeshii daatada lagu add gareynay waxa weeyaan waa text box 1.text okay qowskiis ka soo xid imika waxaanu niri text box 1 wuxuu ku soo add gareynayaa text box 1 markaan daatada gelino wuxuu add item ku sameyn doonaa list box-keeni ay wax ku xareyn doona weeyaan text box 1 wuxuu ku xareyn doonaa ama add item ku sameyn doonaa list box-keeni walaynu eegno inay sax tahay okay waxaan niri start project then waa kan aynu eegno aynu sabtidi gelino sabti okay send okay sabtidii wuu inoo send gareeyay waxaanu ku send gareeyay picture list box-keeni
maadaama ay halkan taalo waxa ka yara fiican inay automatic markii ismasaxdo oo halka ku daro sabti inuu halkan ka masaxo waxaynu ku amri doonaa code la dhaho text boxku markuu wax geliyo list boxka iga masax wuxuu noqon doonaa codekaasi text box 1 dot oo text kula mid ah kolkan iga wax qoro iga masax waa kan uu qoray uu masixi doona insha Allah san arki doona hadii san code error inagu jirin waxaan oran doonaa ahad okay ahad beniri sendi ma sha Allah wino shaqeeyo codekii wana naga masaxay list boxka practicalkiisa inta ku soo koobi doona isagoo waliba inoo wada shaqeynaya inuu ku wada darno maalmihii isniin sendi khamiis sendi inaga masaxay list boxka cashirkiisa inta ayaan ku soo koobi doona list boxka waxaan ku xijin doonaa linki level okay bal zero gaara list boxka aynu isticmaalno panel keligii halka inoogu haynaya waa kan okay waxa tiraahdaa halkan ay ku qoran tahay color waxa ka bilaabay ku qoran tahay fill color horta transparency ka qaad fill step-ka transparency ka qaad okay solid halkan ay ku qoran tahay fill color ka bedel dan waxaad ka dhigtaa midabka noocaasa isoo okay magac inoogu bixiyo waxa tiraahdaa hal waxa soo qaadataa level ay ku qoran tahay level inoo soo xidhkan comment controlska level halka waxaad ka dhigtaa levelka la dhaho list box okay kaas list boxkii fartiisa u maan yar weynayna fonti kadib halkan ka weynee okay list box isla colorkaas uu noogu qaato isagana color ka bedel list boxka kala gare colorkiisa waxaad ka dhigtaa midabku uu ahaa markii hore okay halka waxaan ku jirnaa casharkii la oran jiray list box waxaynu ku xijin doonaa list boxka bal linkiga soo shaqeeyo ama level linkigu okay linkiga wuxuu shaqeeyaa horta linkiga waxaad soo qaadataa marka hore halkan linki ka eeg linki waa kan linki level okay linki level ka inoo dhig fartiisa inoo yar weyne okay fartiisa waa kan fonti waxa tiraahdaa bold 16 iga dhig okay waa ka linki bal halkan waxaynu ku qorin doonaa linkiga magaciisa name magac dooro magac okay ama waxaad ku qori doontaa hadhowto magaca aad u soo bixiso hadda waxaan ugu qortaa name kaliya then okay linkiga double click si markaad linkiga double click siisid linkiga koodkiisa wuxuu noqon doonaa inaynu raahno horta linkigu waa kan linki level 1 dot linki inuu linkigu visit wax booqan karo horta inuu ogolaana inuu internet ku xidhmi karo oo booqan karo waxaynu dhaqanaa waynu dhahnaa true ka dhig okay true string may linki visited true only bas waynu true kaliya noo soo baxa true okay maxaan linki level 1 linki visited is equal way halkaas equal dot ma waa equal true okay wuxuu ku lamid yahay true qoyska ay naga saar okay true waxaan ku xijin doonaa hadaba systemka wax dhaqaajinaya ee internetka ku xidhi doona waxna soo process ka dhacay okay waxaad oranaysaa system hadaba dot diagnostic dot hadana waxaad ku processor gareysaa hadana dot start ku bilow oo waxaad ka soo processor gareysaa waxaad u baahan tahay kaba soo qaad www dot baad baahan tahay la dhaho amood
university.org.com okay labadii dhibcood qowskii linkigan waxaan niri waxaad noo boqotaa www.amuduniversity.org okay inta inoo booqan ku niri waa kan aynu rangarayno namekii waa kan nameka daba hadda ayaynu magaca bedelanaynaa magaca nameka waxaynu ka dhiganaa meesha ay doonayno inaynu booqano magaceeda okay waa kan www.amuduniversity.org baan doonaynaa booqano waa kan hadaba linki hadda khad ma haysano laakiin linkigeenu si automatically wuxuu doonanayaa website-kii Amuud ay lahayd casharka linkiguna halkaas inoogu joogi doonaa waxaanu ka xijin doonaa linkiga open file waxaan ka xijin doonaa picture box ka soo shaqeeyo okay bal picture box ka soo shaqeeyo halkan hal xabo picture ayaan soo qaadano waa kan picture box wakaas okay picture box ka isagu sidiisaba laba siyaabood ayuu shaqeeyaa inaad u sameeysid button upload gareynaya iyo inaad adigu kolay inta practical ka aad sameeysid inaad halkan wax uga soo xareysid haye bal aan wax ku soo xareyno picture box kan picture box kan laba waxyaabood ayaan ku soo xareyn karnaa ama inaynu nahno asa background ahaan image kan aynu uga bedelo aynu background ahaan u isticmaalno iyo inaynu niraahno image kan aynu sawir ahaan u soo gelino waa kan halkan ay ku qoran tahay image image-kii waa kan meelahan ka kaas image halka ay ku qoran tahay aynu u soo gelino image bal labadaba aynu ku tusno okay waa kan image ahaan markii background ahaan u soo gelino waa kan background then waxaad soo gelisaa bal number 6 ka dooro icon-kaas then waa kan sawirkii wali si sax ah uma la ekaan oo waayo size mode ama wax size ma laha okay qayb baa muuqata picture box ka hadaynu soo laftirkiisa 3D fixture ka dhigno waa kan halkan borderkiisa waxa tirada fixed 3D okay si aynu u aragno size ka picture box ku leeyahay waa kan size ka picture box ku kadib waxaan aragnaa picture-kii inay qayb muuqato ay qaybina qarsoon tahay waxaynu awood ku siin karnaa sawirku size kasta uu leeyahay in ay ka weynaato size-ka inagu aan leenahay oo uu markasta size-kiina la ekeysiyo okay halkan ay ku qoran tahay background title image baad dooranaysaa kadib waxaad ka dhigaysaa title-kaas sketch si automatically ayuu sawirkii u la ekeysiyay meeshii waa kan automatic ayuu sawirkii u soo geliyay hadda sawirkani waa background ahaan ayuu haystaa laakiin sawir aynu button tino okay indhaana waxay noo geeyeen email ma ah aynu eegno qaabka loo isticmaalo image kana okay kan color naga dheh waa kan image soo upload garay isagana import slaashna waxaad noo doorataa bal hadda kaasi noo dooraba icon-kaas administration-ka loo isticmaalo waa kan isla sidii wali wax size ah inooma haysto hadaba sidee ayaynu size ugu samaysan karnaa sidee ayaynu amar u siin karnaa inkastuu leeyahay inay inteena oo inoo galo waxaynu amar u siin karnaa kii hore waxaynu ka bedelnay halka ay ku qoran tahay background image layout kan waxaynu ka bedelaynaa inagoo image ahaan u soo gelinay halka ay ku qoran tahay size mode normalka ah aynu waxaan ka dhiganaa sketch image waka image-kii automatically ayuu soo geliyay size kasta wato size-keena ayuu ku amran yahay inuu ku shaqeeyo wakaas kan isna laftirkiisu wuxuu soo gelinayaa sidii markii hore laakiin maadaama aad program sameynaysid waxaad u baahan tahay button waayo haddaad program sameynaysid wixii waxaad ka dhigaysaa setup ma helisid property ama visual aad wax ka soo gelisid marka waxaan sameyn doonaa button bal inoo soo akhrinaya code-ka aynu gelino sawirna inoo soo qaadaya okay inaga clear gare
image tag isaga horta kan loo highlight garee image ka clear okay aan hal button inoo soo qaadno halka inoo dhig then waxaan oranaynaa upload inuu bixino upload okay waa kan button kaas doonayna inuu sawirka inoo soo upload gareeyo okay waxaad oranaysaa horta intaaba code ba gelin waxa program ayaa jira soo qaada sawirada oo loo isticmaalo halka ay ku qoran tahay dialogue ayaad furaysaa kadib waxaad dooranaysaa open file dialogue kadibna formkaaga ayaad ku saddex click siinaysaa okay waa halka inoo soo galay open file dialogue okay button ka hadda double click si hadaba button ka hadda waxaad tiraahdaa inuu ku lamid yahay button kaagu open file dialogue box 1 dot uu ku lamid yahay show dialogue okay waxaan oran kartaa save inoo rangaree waa kan buttonkii click buttonkii imika awood wuxuu u leeyahay inuu wax furo oo dhaho open laakiin codekii ama processkii uu mariga wax ku soo qaadi lahaa hadda ma haysto okay bal aynu eegno inuu sawir noo soo qaado waa kan bal sawirkan inuu noo soo qaado waa kan wax sawir inuu soo qaadin waayo locationka uu sawirka ka soo qaaday ma garanayo wuxuu kaloo garanahayn sawirka meeshuu keenayo ayuusan garanahayn wuxuuna garanahayn sawirkani lagu diray ma GPG ba ma PNG ba ma gift ba ma TX fat ba muxuu yahay bal aynu ku darno code yar oo u sheegaya inuu sawirku yahay all oo soo qaadi karo mid walba GPG iyo wax walba okay halka hoos u degmar waxaad qoraysaa horta meesha sawirka la keenayo waynaad u sheegtaa sawirka waxaad keentaa picture box 1 okay isagoo image keen okay inta waynu sheegnaa hadaba waxay kula mid tahay system dot drawing system dot drawing okay dot image dot waxaad ka soo qaadaa from file kaasoo la dhaho failka wax soo qaadaya open file dialog box 1 isagoo soo qaadaya dot file name qowskiina soo okay imika codekan shaqadiisu waxay tahay inuu soo qaado image keeno picture boxka isagoo ku soo qaadaya file name meel kasta uu yaalo magaciisa isagoo raadsanaya marka inuu buttonka click siino okay aynu save niraahna mar kadibna aynu niraahno start project ama start okay waa kan buttonkii upload ka ahaa imkan click gareyno upload imka directly wuxuu doontay meel oo sawirada ku ogaan okay waa kan bal aynu soo gelino furahaas inuu hada toos picture boxka noogu xareeyo waa kan wuu inoo shaqeeyay si toosana wuxuu ugu xarooday picture boxki halka waxaynu ku joojin doonaa open file dialog box iyo picture box wada socda bal imika waxaynu eegaynaa color dialog box iyo font dialog box iyaguna soo shaqeeyaan waa kan badana fontigan waxaa loo isticmaalaa inay ku shaqeeyaan buttonno iyaguna way kaligood ma shaqeyn karaan aynu bal samaysano xitaa hal xaba oo menu ah oo site-kaas sare inoo koriyo halkan ku siidaa then waxaad tiraahdaa color waxaad tiraahdaa background color okay waxaynu doonaynaa markaynu background color siino aynu click gareyno inuu inoo soo baxo kalaradii uu hadana inooga bedelo colorka formkan okay waxaynu samayn doonaa sidan okay hoos soo yardhig saddexda hoos soo yardhig kana hoos soo yardhig okay
iyo makruqaad okay waa kan halkii ay ku qorneyd dialogue bal ka dooro color dialogue oo ah kii inoo bedelaya backgroundka ku sii dhaxda formkii okay kan double click si okay waxaad ku qortaa kan wuxuu ku limid yahay color dialog box 1 dot show dialog okay imika aynu eegno inuu noo shaqeeyo bal buttonkii aynu samaysanay ee menu barka click background color okay coloradii ayuu noo keenay aynu doorano bal colorka bluega okay inooma shaqeyn weli waxna inagama bedelin waayahay aynu bal eegno inuu wax inooga bedelo ama ay ku darno codeka wax ka bedeli haddaba waxaa odhanaysaa mi back color oo ah formkan colorkiisu hala mid ahaado is equal hala mid ahaado color dialog box dialog 1 dot color okay back colorkani hala mid ahaado colorka laga soo doonto color dialoga okay waayahay waxaan siinay amar bal eegno inuu amarkan aan siinay uu shaqeeyo waxaanu neenay imika back colorka iga bedel waxaad iga dhigtaa green oo maasha Allah green ayuu nooga dhigay way noo shaqeeyay codekaas okay halka waxaanu ku shaqeeyay color dialog okay aynu ku xijinay bal fointy ga soo u shaqeeyay isaguna okay halkan hoos soo yardaji waxaad ku qortaa fointy type ku fointy type keedii labo fointy color keedii inuu noo shaqeeyo labadaaba inay noo shaqeeyaan baan doonayna okay bal fointy type in ku horeyno aynu soo dhigano hal xabo oo wax laga bedeliyay waxaad noo doorataa common controlski ku noqo reach box ka bay noo soo qaad okay halka ay noo dhig sidaa dheh okay waxaan doonaynaa inoo rangaree halkan imika waxa aynu ku qorno visual studio.net 2010 waxa aynu halkaa ku qorno bal inaynu markaynu halkan tagno aynu nidhaahno oh sorry waxbaan isdhex gelinay waa inaan kala saarnaa kow waxaan isdhex gelinay halkan tag kan ku noqo kan waxaad u bixisaaba waxaad tirahdaa file okay oo ahaa meesha aynu randomize ka sameynaynay ee aynu wax ka dooranay okay file then fileka waxaad hoos geysaa horta halkan waxaad ku bedeshaa background color okay halka codeka ku jira waxay noo soo qaad cut soo dheh okay halkan Kale background colorkan Kale halka codeka noogu shub okay save run okay kan waa file noo soo furmaya sub menu ayuu leeyahay hoos tagaya okay waa kan kana inoo shaqeynaya masha Allah okay marka waxaan doonaynaa font colorkii then waxaad sii hoos geysaa font type afartii nooceeda la kala bedelay okay waxaad tagtaa hadaba halkan waayahay farta nooceeda maxaa inoo bedelaya hadaba farta nooceeda waxa inoo bedelaya dialogue ku noqo waxaad soo qaadataa font dialogue ku sii dhaxdaa formkii okay kan ku noqo fileka tag font type ka tag okay waxaad ku qortaa iyadan marka wuxuu ku qormayaa color waxa ku qormaya iyadana font oo markii aan doonayno inaynu ka bedelno
formka colorkeena ama font type colorkeena inaynu ka bedelno markii doonayno noqoto ama typekeeda aynu bedelno waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa halkan hadda maxaa u hooseeya sub halkan waxaa hooseeya font color soo ma okay waxaad odhanaysaa font dialog box 1 dot show dialog okay save run waxaan ku qornay Visual Studio okay bal aynu eegno bal inuu fontkiina wax ka bedelo font typekeeni waa kan waxaad doortaa bold waxaad doortaaba 20 ka dhig okay waxba kama bedelin waayo wax amar ma haysto marka waxay noqonaysaa inaynu ku amarno aynu nahno bal bedel okay waxay noqonaysaa marka inaynu ku qorno code-ka la dhaho ku noqo halkii waxaad raacisaa reach box 1 haye dot for color waxaad tirahdaa wuxuu kula mid yahay baad odhanaysaa waxaad odhanaysaa dot font okay dot font waxay kula mid tahay font dialog box 1 dot ayaad odhanaysaa font okay code waxa weeyaan inaynu dhahno textiga ku jira rich box 1ka colorkiidu ha la mid noqdo colorka aan ka soo dooranno fontiga okay waynu rangareynay waxaynu qornay Amud University Faculty of ICT okay Amud University Faculty of ICT imika file tag bal font type dooro farta qurux badan waxa tira Cambodia okay bold ha ahaato size-keedu 20 ha ahaado okay waynu bedelay Amud University Faculty of ICT aynu ka dhigno bal chief aynu raahno bold italic ka dhig waa kan wax kasta underline aynu ka dhigno waa kan hadaynu baahana underline waa kan underline wixiiba waa kuwaas okay waxay noo shaqeeyay imika font type bal font colorkiisu inoogu shaqeynaya aynu eegno isaga laftirkiisa waa muhiim okay font colorka double click si koosna waxaad tirahdaa font dialog box 1 waxaad tirahdaa isaga waxaad tirahdaa horta color dialog box 1 dot show dialog okay way noo shaqeeyay intaas haye waxaan odhanaynaa qoraalka rich box ku jira rich box 1 dot for color colorkiisu ha ahaado dot fire color dialog box 1 dot color okay maxaa ka dhiman color dialog okay waa G dialog okay waxaanu nidhi imika la mid ahaado colorkaas okay waa yahay aynu eegno East Africa University okay horta aynu first year weynaysana font type ka bedelano Cambodia okay bold 16 okay East Africa University okay bal aynu eegno font colorka inuu bedelo font type ki weeyaan kani inaga cancel inaga close garee font color okay font colorka aynu doorano midab then okay wuu bedelay font colorkeeni background colorkeeni eegno wuu bedelay background colorkii wuu bedelay
formka bal aynu farta ka dhigno red farti wayno bedelay waxaanu dhamaynay lesson 3 oo ku saabsanaa list box ko linki level 2 picture box 3 open file dialog box color dialog box iyo font dialog box insha Allah waxaynu u sii gudbi doonaa casharo kale oo si heer sare loo soo diyaariyay maantana casharkeenu halkaas ayuu noogu joogayaa aad ayaad u mahadsantihiin sida wacan aad noo dhageysanaysaan ama sida wacan aad noogu xidhan tihiin keliyata waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe tirahdaan oo aad ku xidhnaataan casharada aynu mar walba soo gelinayno iyagoo weliba isbuucan gudihiisa aanu si fast iyo u soo gelinayno casharada aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh